meelaha Soomaalida lagu amaanaha waa jiraan laakiin waa shay nisbiya مثلا Soomaalidu culturally bay u leedahay quraan qayb marka waxa laga yaabaa dadka kale quraanka akhriskiisa inay bartaan oo dabeetanaan cid qaybsan ku jirin marka waxa laga yaabaa inaad aragto masaajidda oo dhan Ramadaanta inay nama Soomaaliyeed wada tukiyaan waayo Soomaalida xufaada ku badan bari dhawey Mareykanka tartan quraan baa lagu qabtay nationskii muslimiinta oo dhan meesha joogay toodii badnayd baa ka soo qayb gashay waa 6 qaybood oo min 3 qof la siinayo 30 jis 25 jis saasoo kale 6 qaybood oo qayba ay tartan galayso qayb walba 3 qof baa ka soo baxaya 18 Soomaaliyeed baa qaaday gabigeed baa meeshii la isugu yimi baa saddexdii xufaada quraanka oo dhan waa Soomaali saddexdii shanta jis waa Soomaali saddexdii nusku waa Soomaali 18 Soomaaliyeed baa la siiyay hada waxaad qiyaastaa meel ummad dhan oo muslimiin isugu timi oo meel kasta koob laba saddex uu Soomaali yahay meelahaas oo kale ciidina lama wadaagto dadka xifdigeena la wadaaga waxa kamid ah murutaanta ma dhoofaan walidalik hadaad xufaad aragto dadku culture u leh dhaqan u leh Soomaalida kamid ah marka dadku markay arkaan raggan dhan quraanka korka ka wada akhrinaya awliya leeyno wada qaatay waa wada mawlaana baynu wadanay marka laga eego